saxaafadeed kan ay saaka rugtan rugaha jamhadda ka mid ah ay ku qabatay jamhaddu nuxurkiisa muhiimkiisu waa qaybaha ay saraakiishu sheegeen haddaan u kaalmooday waxaan ku dari lahaa ilaa 2 qodob 3 qodob kow marka koobaad waxaan tacsi u dirayaa tiraanya leh dadkii Soomaaliyeed oo cadawga Soomaali diidka ah ay dhibaatada u geysteen oo 48 saac oo la soo dhaafay aan sida aan turista iyo kala sooc lahayn ay cadawga Soomaali diidka ah gobolka soo lagu dhaqmayeen oo loo tarxiilayay oo loo dhibaateynay waanu la wadaagaynaa tacsibaanu la wadreynaa ummadda Soomaaliyeed oo reer gobolka Sool ka tirsanayd isla dadka dhibaatada loo geystay oo Soomaaliyeed oo gobolada Soomaaliya ka mid ah ku noolaa oo cadawgu tarxiilay waxaan leeyahay tacsi kadib inanka laascaanood ku dhashay ku qaan gaadhay ku guursaday wuxuu ka laascaanood aabihii ku dhashay uu kaga duwan yahay ma jirto waa deegaan Soomaaliyeed laascaanood waana sidii taliyuu u sheegay waa xarumaha maxay ahayd ku calaamadsan midnimada Soomaaliya iyo dagaalanka diinta Islaamka bay ka mid tahay oo takoobaatay inanka waxaan leeyahay ama ninka geemaatada meel Soomaali leedahay tan cadow bayna ka qabsaday Soomaali diidi dabadeedna soo noqo soo haybi jamhadda dib u xiraynta SSC rugaha ay ku nooshahay waad helaysaa aynu qaadano waanu sideenay adna noo kaalay maxay ahayd waayo waxa dawrataa ma jiraan qaxoontiha ku noqon meel kale cadawgan Soomaali diidka baan iska xoreynaa nino soo noqo maatada meel Soomaaliyeed geeyo intaasaan oran lahaa waana uga tacsiyedeynaya dadka dhibaatada ku dhacay haddii aan intaa ka gudbo tacsida arrinta tani waa jamhaddan SNM waa arrin ay fulinayso iyagu waa fuliyayaasha laakiin waa fikir cadow oo dhagareed oo ummadda Soomaaliyeed dhexdooda dhagar lagu samaynayo si midka kale gobolkiisa ugu yeeriyo loo googooyo waxay ka soo jeedaa cadawga laxaad kale oo ilaa hadda la dagaalamaya oo Ingiriis bay ka soo jeedaa waa kan ku cad xadka bal jamhadda SNM maxay doonaysaa waa maxay xadka ay sheegaysaa ay leedahay xadkan gaarayna xadkaasi waa kii Ingiriis marka waa fuliyayaal laakiin dhagartani waa dhagar ka soo jeeda gaalada iyo cadawgii aynu la dagaalami jirnay oo aan diin iyo dal iyo nolol toona ogolayn ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa loo soo guntaday dalkan dawladdii dhexe Soomaaliya waxa lagu hayo waa arkaysaan jiritaan iyo maxay ahayd wadaninimo toona lama ogola jamhadahana la sameeyo maamulo laga dhigay oo cadawga ay taageerayaan dadkii Soomaaliyeed baa sidaa loo xasuuqaya kuwii gobolka ku noolaa labeentoodii la guranayaa loo leeynayaa cidii dambi Soomaaliyeed ay ku jirtay waa inaad ka xanuunsataa waxyeelada lagu hayo gaar ahaan gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn waqti dheer oo ay taariikh u leeyihiin inay la dagaalamaan cadawgan baaxad leh kala dambeeya oo ilaahay hadda ay u taagan yihiin waxaan kaga dhaliilayaa ummadda Soomaaliyeed halka
dhacdooyinkan hadda taagan waa kuwii ugu dambeeyey waad aragtaan meeshay dadkan jamaadan SNM ay Soomaalinimo iyo islaamnimo iyo aadanimo ay ka taagan yihiin dadkan waxaa lagu leynayaa calanka buluuga ah oo ina ka dhaxeeya waxaa lagu leynayaa midnimada Soomaaliya ma xil gaar oo iyada saaran haddaad Soomaalinimo ogoshahay haddaad islaamnimo ogoshahay waxay dadkan ku dhimanayaan reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn waa ku dhaliilan tahay ummadda Soomaaliyeed inaynan isku soo barbartaagin tani way ku filan tahay qabiil hawdhigina iyo reero iyo gobol hawdhigina waa cadawga baaxadda leh Soomaali gogoynaya ina haysta ummadan ay hor taagan tahay 14 sano ay leeynayiin gaalo iyo Ingiriisi baraay kaga dambayso cadow sokeeyo cadow shaba dadkaasi waxay u baxayaan ma wax kale waa midnimada Soomaaliya iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay way isbarbartaag oo at least haddii xataa aanu arki lahayn cid mudaharaadaysa maatada calanka buluuga iyadoo gacmaha ku sideetay lagu gogoynayo xabadda dad Soomaaliyeed oo u damqaraya xataa waxay ahaan lahayn yeelkeedii dadka reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxay u taagnaayeen waqti dheer oo ay ab iyo awooba ay isir u leeyihiin inay ummadda Soomaaliyeed midnimadooda iyo diintooda badbaadiyaan waa noo adkaysanayna laakiin waajibkiina qaata taa haddaan intaa kaga gudbo waxaa la yaab leh oo aad iyo aad la yaab u leh dadka maatadaahi waa firig leeyihiin inta awoodooda wax xabsi la geliyo iyo wax la laayo waxaas isugu jiraan laakiin bal niman baa isa soo hortaagaya abtirsiya dadkan ku ah baa la yaab leh oo cimaamadaystaan qaarkood oo maxay ahayd masiire kala duwan sheeganaya baa dadka noocaas oo labeentooda la xulanayo oo sida loo gelayo isa soo hortaagayo cadawgu adeegaya dadka reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxa leeyahay inaad waayo arki weydaan oo dhagar qabihiina ka waayo arki weydaan waliya daba taagnaataan waydina si daro ganaxyadiina haysta kamid war iskeeriya wax roodkan yuusan iskiin hortaagin cadawgu shaqaynay dadka reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn daan daliil u jeedin leh saasaan oran lahaa dawladda federaalka Soomaaliya waxaan leeyahay bal xalay waan bamaqlayay madaxweyne maamul goboleed baa yiri farmaajo ka dambeeya dadka la tarxiilayo laascaanoodi bal madaxweynahan maxay ahayd taargetka noqday oo midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo dawladnimada taargetka u noqday uu soo nooleeyay isaga halka yidhi kuma ka dawladdu madaxweynaha kaliya xubnaha kale golayaasha ku jira waa inay ka hadlaan isagu bal taarget noqday hadda qabiilka wax ka dhigayaan waa inay ka hadlaan lagumana haleeyo haddii la oran lahaa xubnaha ugu jira dadka kan golayaasha kala duwan oo dawladda dhexe war waxba ugu ma jiraan Puntland iyo Somaliland baa dirsaday haddaan wax ka reebi lahaa laba gabdhood ama saddex gabdhood baan ka reebi lahaa war laguma haleeyo ummadda Soomaaliyeed idna makhraatibaad ka tihiin inaynan wakiil ka ahayn golayaasha dawladda dhexe oo Soomaaliya kuwa Sool iyo Sanaag iyo Cayn ka soo jeedo ku abtirsada war uma maqna dadkayna ma xulan mana disan waa dhibaatooyinka dadka lagu hayo oo midba mid ka daran tahay bay ka mid tahay ummadda Soomaaliyeedna makhraati bay ka tahay arintayada balayaabka kale jira wuxuu yahay hadda ummadda Soomaaliyeed ay makhraati aad rabtaan inaad ka noqotaan inay siidan iyo bixiyo ay kuwa kale u soo xulaan taana ummadda Soomaaliyeed makhraati baad ka ahaanaysaa
ميا على قف كستا أو إسلام أما الصومالي حلبا كسرانين وقبته وأي قف كردت كانوا محاولي مريا مدنما هذا يودي مريان على قابلو قايودي مريا سيدا درتي شباب الإنكار كي الظلم يلوي سماينيو قف كستو صومالي وين وقبتها وإلى وركن ونوجنا اسم كي مصدرين أو بيل لك مصدر أو سول يسان ورهاب الباوتي ورما متلوين إلى هذا تاو حانودين براد ما أنت روان ويجينا ومد الصومالية سيكيش وقوما هالليو عيد دولة فدرال كأوتشته أو المحايا هذي محايا وجهل وين ثم أنا وحاول كل محايا الله غيرك لا تصدق طالع سيداسان أنت عشان كجال وضمبينتي عنكو سورورينيا سيدا سراكيش وشيكتay waxaan isleeyahay reer Soomaaliya sanaag yacayn had nin nooli uu gaadho isagoo nool had uu gaadho oo dullinimo oo idin dhimanay ma jiro bal hadda Maryana waa seetaano inaad Marya gashantiin baa soo haysataa warxiyaha la idin qabay kuwii noqolaha loo soo dareera oo u kaalay wiilasha taniyo janaadid هذا دمير ليدين وي حليها اللي قبي حق آذان قالوا او شرف حمو او يدين دمني مجد إلى هاي حينيها هاي نقبتو يا ايه صوت ريرا هدوك سنين الدولي كان عدو ساقا وحي هذا الويعاي اما قورة كدب اما قلب عرو كدب وتشدوينك يا هدف قاعد ماشي نوتي باكاسا أنا نوال كوجنا يا وأنا أنت يكون قارسيسو وحوا عندنا الله هاري وقت بدنا كوما هاري يا هذا هو حلا والوقت بدنا كوما هاري وتشدوينك أنت كوها هرداي ورداقارين الفل كسي قارس